Weligaa ma isweydiisay su'aasha sideen password ugu xiri karaa Microsoft Word document kombiyuutarkayga ku jiro ama aan doonayo inaan la wadaago asxaabtayda? Haddii ay tahay jawaabtaadu haa, soo dhawow. Maanta casharkan wuxuu ku saabsan yahay How to Password Protect a Word. Cabdiqaadir Dubad ku soo dhawow channelka Cabdiqaadir Dubad. Maanta waxaan ka hadli doonaa oo casharkan uu ku saabsan yahay How to Password Protect a Word document. Dabcan waxaa laga yaabaa inay kugu dhacdo ama marmarka qaar qof kale oo adiga taqaanid ay ku dhacdo warbixin uusan ugu talagelin inay dad kale ay gaarto amaba document confidential ah ama qaas u ah ama sir u ah oo desktopkiisa ama kombiyuutarkiisa saarnaa qof kale inuu iska furto ama kombiyuutarkaba in xitaa lagaa xado oo qof kale uu maaragtay document adiga aan ugu talagelin uu furo suurtagalna ay u noqoto in warbixinta confidentialka ama secretka goonida adiga ku ah uu akhristo. Marka waxaa runtii farxad leh in Microsoft Word document ama Microsoft oo dhan uu leeyahay oo uu kuu suurtagelinayo in password aad ku xirato documentigaaga adiga oo keliya ama cidda aad ugu talagasho oo keliyana ay furi karto. Marka maanta waxa aan rabnay inaan ka hadalno waxay tahay qaabka password loogu xiri karo Word document oo kombiyuutarkaaga kugu jiro ama desktopkaaga kuu saaran. Marka insha Allah kusoo dhawaada. waxaa inoo saaran desktopka saad aragtaan Word document ay ku qoran tahay Cabdiqaadir. Word documentigan hadda wax password kuma xirno. Marka aan furo oo aan soo kiciyo si toos ah u furmaayo wax password ima weydiinayo marka aan soo furno. sida aragtaan documentigan waxaan u soo qaatay sample ahaan oo tusaale ah inaan u isticmaalno casharkan laakiin wax hadda confidential oo sir ah kuma jiraan of course. Laakiin sample ahaan wuxuu yahay documentiga adiga kugu jiro oo aad qaas u leedahay marka ayada waxaa laga yaabaa in aad doonaynin cidba inay kula aragto oo adiga oo keliya marka ayada furto. Marka si aad u ilaalisid oo qofna kalena uusan kaaga furin waxaad samayn kartaa inaad password ku xirto. Marka kan hadda waxba nama weydiinin laakiin waxaan rabnaa inaan ku xirno password. Marka waxaan tegaynaa file qaybta kore file info ayaan imaanaynaa kadib waxaan leenahay protect document. Optionadan uu ku siinayo kan aan ka rabna waxay tahay encrypt with password inaad password ku xirtid. Markaa ku dhufatid wuxuu kuu soo saarayaa encrypt document meesha ay ku qoran tahay spacekaas aad gelinaysid passwordka. Laakiin inta aadan password gelinin waa muhiim inaad akhrisid meeshan caution ay ku qoran tahay ama digniintaas. wuxuu leeyahay if you lose or forget the password it cannot be recovered. It's advisable to keep a list of passwords and their corresponding document names in a safe place. Remember that passwords are case sensitive. Basically meeshan waxaa looga hadlayaa in passwordkaaga aadan hilmaamin hadduu kaa lumo ama aa hilmaantid inaan la soo celin karin documentiga. Marka ay muhiim tahay mar walba inaad ilaalisid. Case sensitive sidoo kale passwordka mar walba wuxuu yahay case sensitive which means in uu noqonayo marka ayada ah mid adag oo qofna uusan case gareyn karin ama uu qiyaasi karin. Marka tusaale ahaan haddaan ku xirano ka annaga ugu horeeyo okay mar labaad uu ku siinayaa oo uu ku leeyahay confirm garay oo gelinaysa haddana mar labaad passwordkaaga markaa gelisid okay leedahay. Marka halka calaamad uu ku siinayo oo aad arkaysid oo soo saaraya kalarka goonida a password is required to open this document. Documentiga in la furo wuxuu ku weydiinayaa password. Marka aan iska xirano safe uu ku leeyahay changeskan safe garayno. Mar labaad haddaan soo kicino marka hadda oo desktopka aan ka soo kicino double click garayno wuxuuna weydiinayaa password. Waa aragtaan waa inaad gelisaa password which means passwordka aan ku xiray ayuu rabaa inaan geliyo qof kalena ma furi karo. Marka saas ay isu tahay waa ka uu furmay. Marka waa muhiim in documentigaaga kombiyuutarka kugu jiro ama desktop ku saaran in mar walba aad maaragtay password ku xiratid isla markaana runtii ay ku noqdaan case sensitive because kombiyuutarku kaa lumi karaa wax kasta dhici karo. Marka mar walba taxadirkaas aad iyo aad ayuu muhiim u yahay. Waxaan jeclahay inuu casharka maanta uu wax badan uu ka saacideynayo ama maaragtay ay ku suurtagelayso in Word documentigaaga aad password ku xiratid insha Allah.